السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة هذا خيارتك وحنا شارك الصومالي نتوي كلاس روم. waxay noo socday taxaniin la magacbay taxanaad technology aan kaga warramayno maalin walba qodobkii Allah uu inoo yidmo aan ku soo qaadanaynay ujeedada kooraskana dhowr jeer ayaan tilmaamnaa waxa weeyaan laba siba ama saddex qof ay faa'iidato horta qofka hore uu soo bartay muraajaca u tahay qofkii cusubna waxa uu tahay isagana inuu sheegan ogsoonaado qofkii kale ee meelaha looga soo diray ama baaritaan rabay inuu ku ogaadane inuu sheegano gooniyo uu helo ilaa marka kale course dhaxan course dhanba gudaha kaga jiraay saddexda qof oo wadan maanta waxaan ka warrami doonaa tutorialkii koob iyo kontonaad weeyaan oo tutorialkii misaad koob iyo kontonaad weeyaan waxaan kaga warrami doonaa waxa loo yaqaan Cisco 3 layer baan ka warrami doonaa oo waana tutorialkii 51 waxaan kaga warrami doonaa shirkaddan Cisco la yiraahdaa waxay leedahay design shirkad walbaaba marka shirkadeena guriyaha shirkad walba waxa leedahay design aan cidna kaga horeyn oo mid laga yaabo badana waxay taqaanaa sida loo dhiso hoteelada qaarba waxay yaqaanaa sida loo dhiso guriyaha magaranaysa laba qolaha qaarba waxay yaqaanaa fooqaqa shirkadba waxa leedahay design gooni ah haddaba shirkaddan Cisco network designkeedu saddex shay ama 3 layer baa loo yaqaanaa shirkadda loo yaqaanaa Cisco horta Cisco 3 layer haddaan kasabtay ka qaadano waxa weeyaan waa designka shirkadda Cisco ay u orabto garaysay in network lagu dhiso oo waxa waa design ay xiisayso ama ay dadka badan kula taliso ardaydeeda koorsiyeeda baranaysan koorsiga Cisco bixisana ay ku magaranaysaa ku tababarto weeyaan magaca kale loo yaqaan waxa weeyaan Cisco 3 layer haddaan la maqal waxaad ku maqasho laga yaabaa hierarchical internet network model labada magac waa isku mid waa design shirkadda Cisco ugu tala gashay in network loo dhiso designkan muxuu ka koobay design noocan waxa weeyaan haddaad shirkadda Cisco ee designkeeda raacdid network-ka ka saddex qaybood oo kala jebisa waxay tiraahdaa qalabada kombiyuutaradaada iyo serveradaada aadka magaranaysa end deviceska loo yaqaano iyo switchadaada waxa inta la isku yaqaanaa bay u taqaanaa access layer baa u taqaanaa waa lakabka loo yaqaano lakabka ugu hooseeya ama waxa loo yaqaanaa dabaqatul usul luqadda carabiga switchadaada iyo qalabada kale loo yaqaan interface-ka kombiyuutaradaada mobiladaada waxaas oo dhan waxa loo leeyahay access layer waxa faa'iido ku jirta gadaal baan ku ogaaday in design-ka saddexda loo kala qaybiyo qaybtaada access layer-kaaga haddii meesha ay jiraan laba access layer iyo wixii ka badan tusaalooyinka waxa ka jira koow access layer-kan iyo access layer kale iyo access layer kale iyo access layer kale oo afar switch oo access layer ka tirsan haddaba bal switch-kan koowaad iyo switch-kan waxa isku xidhay switch kale isku xidhay haddaba waxa leenahay switch-kaasi waxa loo yaqaan multi layer switch waa loo yaqaan laakiin layer-kii uu jooga dabaqade wuxuu jooga dabaqadii loo yaqaan distribution ama dabaqati tawsiic marka dabaqati tawsiic ama dabaqati distribution layer-ku waxa weeye waxa isku xidhan two or more access layer bay isku xidhan two or more access layers bay isku xidhan baka waramka dabaqati distribution layer-ku waxa noo yaala laba distribution layer waxa loo yaala laba switch labadan switch dirween la isku soo xidho waxa loo baahnaanayaa switch kale oo core layer ah waxaan leenahay laba distribution wixii ka badan soo xidhan waxa loo baahnaanayaa core layer si kale hadaan u dhigno waxaan leenahay kombiyuutaradaada ay shaqaalahaagu fadhiyaan iyo switchada ay ku xiriirsan yihiin waxa la isku yaqaan access layers baa loo yaqaan waxa loo yaqaan access layers baa loo yaqaan hadaan si kale u sii dhignana oo practical gooniya baan qaadano barimka kan hadaan mid slide saan banaysano slide hadaan imka banaysano halkan ilaag waxaad ka soo qaadaa okay pointerkeena la soo qaadan soo qaadan okay waxaad ka soo qaadaa halkan waxa yaala halkan waxa kaaga dhisan xafiis ama waa fooq halkan kale waa fooq kale weeyaan labadan fooqan koobaad ayaa waxa ka shaqeeya 10 shaqaale baa ka dhaxeeya waxa ka shaqeeya 10 shaqaale baa ka shaqeeya waa shaqaalihii koobaad adigu waa 10 shaqaale laba nimka soo waramiya 3 4 shaqaale baa ka shaqeeya noode waxaad ka soo qaadaa labadan shaqaale kombiyuutarada waxay ku xidhiidhsan yihiin switch bay ku xidhiidhsan okay kuwan kalena labadan shaqaale kombiyuutarada waxay ku xidhiidhsan switch kale labadan waxay ku xidhiidhsan switch-kan labadana switch waxa leenahay switchada laga bilaabo ilaa iyo kombiyuutarada iyo mobilada halkan yaala magaca la soo yaqaan waa access layer oo macnaheedu tahay hadduu kombiyuutarkan xumaado oo lagu yiraahdo
dhankay waxa ka xun yihiin waa inaad tiraahdaa qaybta loo yaqaan x layerka almacna wixii switchka dhankan kasoo xiga oo dhan silvan haya haddii labadan switch rabo in la isku xidho waxaa loo baahnaanayaa switch kale oo loo yaqaan layer 3 switch laba switches la isku xidho waxaa leenahay switchka isku xidhaya laba x layer wixii ka badan waxa loo yaqaan distribution switch oo wuxuu ka shaqeeyaa layerkii loo yaqaan distribution layer waxaad ka soo qaadaa halkan kale waxa ka shaqeeya afar shaqaale 1 2 3 4 labadan computer labadan shaqaale computerada waxa isku xidha hal switch labadan kale shaqaalana iyagana computerada waxa isku xidha switch waxa leenahay switchada computerada kan yaala iyo serverada gudahan yaala isku xidhaya ku xidhan switchka iyo wixii switchka waxa loo yaqaan x layer labadan switch hadii la isku xidhan waxa loo baahnaa distribution layer labada meelood halkay ka maraya distribution layer ka maraya hadii labada switch kale la isku xidho waxa leenahay waxa la keenay switch kale ama router baba kala keenay waxa leenahay router kaasi dabaqada uu ka shaqeynaayo waxa weeye distribution layer-ki labada switch isku xidhi doona labada x layer-na iyagana waxa leenahay distribution layer-ki ka shaqeynaya switchadan kale iyagana computer ku xidhso waxa leenahay waa x layer-ki ka shaqeynaya maxay faa'iido ku jirta faa'iido ku jirta waxa weeye waa satan waxay naga caawinayaan hadana kan imano waxay naga caawinayaan design-keeni waa qurux badnaanay design-keeni ayaa qurux badnaanaya oo waxa weeyaan hadii maanta switch soo iibsatay hal meel aad iskaga xidhin oo aad computer soo dhigtay computer aanad u aaba yeelinba design ku saxsanaanaya ma jirayso hawlgalnimadaadii inaad shabakadaada noqoto mid hawl jirtana way wanaagsanaanaysaa shabakadaadii inaad dib qaabin dib mar ku sabso ku fududaan shabakadaadii in scale ba noqoto wax laga bedeli karo way fududaan shabakadaadii in lagu korsano way fududaan shabakadaadii in qiimadeedu ku yara aad iyo aad oo waayo wixii oo dhan ba ku xisaabsanday hadii kale maalin bay switch baad iskaga baahnaan adoo garin shaqada ku qabanayso troubleshooting waa ku fududaan oo cilad dalka ka jirta aad ogaan shabakadaada ku qurux badan shabakadaadiiba way arag noqon faa'iidooyinka dhan baa ku jira si kala hadaan dhigno aniga dhaanay computer laptop-kaaga iyo computer-kaaga iyo email server-kaaga web server-kaaga waxa aad ka yiri qalabka loo yaqaan repeater-ka iyo hub-ka iyo database-ka intaas waxa loo yaqaan access layer oo markuu computer-ka ka xumaado waa inaad tiraahdaa computer-kayga maadaama xumaaday access layer-ki wax ka xunyo waa inaad tiraahdaa maadaama ka la bixinayo la router-kaaga iyo layer 3 switch-kaaga qalabkaaga loo yaqaan bridge-kaaga iyo firewall-kaaga iyo router-kaaga iyo VPN access router-kaaga waxa soo dhan waxa la isku yaqaan qalabadana distribution layer baa loo yaqaan oo waa ere bixin la isla yaqaan qalabada noocan waxa loo yaqaan distribution layer qalabada ka sareen access layer switchadaada aad ka u sareeya ee kamid yihiin multiplexer-kaaga iyo BBX oo loo adeegsado marka la adeegsanayo 4IP-ga iyo high speed one switch iyo high speed enterprise one router iyo routerada aad ka advanced kana magaca la soo yaqaan waa access core layer marka maanta hadaan ku iraado computer waxaan soo iibsanay qalab loo yaqaan access layer oo soo iibiyo core multiplexer waxaad leedahay khalad multiplexer core layer isku kamid sidadeed access layer waa kuwan iyo qaar kale la halmaala oo kamid smartphones-ki kilo yaqaan web oo wireless access point-gi ah iyo wixii kale la halmaala access layer-ka ku jira video-ga soo socda aan ku kulmi doono oo tutorial 52 aan ka dhigi doono waxaan ku kala tagi doonaa salaanta islaamkeena leh assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh